suudaan, soomaaliya, yeman, libiya, eritrea, syria, dhammaan waddamada aan ka sheekaynay waxay dhibana u ahaayeen dowladda imaaraadka carabta muddo 10 sano ka badan ayay qaarkood dhibaato uu ku hayay dalalkaasi. kuwana hadda ayuu duulaan ku ahaa kala qaybinta waddamadaas, inuu kala googooyo midnimadooda, inuu wiiqo, inuu burburiyo, iyo inuu isagoo waddamo kala wakiilanaya in lagu duulo uu ka shaqeeyo hubka iyo saanadii rasaasta uu gudbiyo ayuu imaaraadku ku fognaa. dowladda suudaan tan iyo markii dagaalka lagu qaaday imaaraadka carabta isla markaana ay suurto gashay in ay sahaydii imaaraadku ay u diri jireen suudaan ay gebi ahaanba go'day ila meelay ka duulaysa ma lahan, si weyn ayay uga faa'iidaysanaysaa. kooxda RSF ayaa sidii tusbax go'ay camal u furfurmaya, jab weyn ayaa ku socda. magaalada baara oo ka mid ah gobolka kurdufaan, gaar ahaan waqooyiga gobolka kurdufaan, ayay maanta qabsadeen ciidamada suudaan. ciidamadoodu waxay baacsanayaan ciidamadii RSF ee Janjaweed kadib markii ay waayeen logistikadii iyo rasaastii iyo sahaydii ay ka heli jireen dhinaca imaaraadka carabta. burburka iyo dhibaatada iyo weerarka iyo duulaanka imaaraadka carabta ku dhacay waa inkaartii shacabka reer suudaan, kuwa reer soomaaliya, kuwa reer yeman, iyo kuwa reer libiya, iyo sidoo kale qaar kale oo badan. daawadayaal saaxiibayaal, dagaalka bariga dhexe ka socda ee iiraan iyo u dhexeeya maraykanka iyo koofiyad yarta keliya ma ahan dagaal halkaas ku eg hawshiisu iyo saamayntiisu, ee waa dagaal taabanaya guud ahaan amniga caalamka. qayladii yeertaba qolaysa uga darine faa'iido weyn ayay waddamada qaarkood ka dhaxleen duulaanka aadka u adag ee lagu qaaday waddamo ay ka mid yihiin imaaraadka carabta. soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal. bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. halkani waa warbaahinta qaranka TV, bartaan ku leenahay Facebook iyo YouTube. muuqaalka nala dhammayso ilaa bilowga ilaa dhammaadka waxaad ku ogaan doontaa wax badan oo ku saabsan geopolitica iyo sida ay siyaasaduhu isugu xiran yihiin, iyo dagaalka ka dhacaya bariga dhexe sida uu faa'iido weyn ugu yahay waddamo ay qayb ka tahay Soomaaliya. shaahaaga soo qaado haddii aad afurtay. dadka inta aan markaasi weli afurin ee waqtiga kale u tahay sida dadka America joogana waxaan u rajaynayaa insha Allah inay caafimaad ku afurtaan waqooyiga America iyo meelo kale, Australia oo kale. waa tahay daawadayaal saaxiibayaal, dhibaato kasta ama balaayo kasta oo meel ka dhacda waxaa ogaataa cid ayay faa'iido ugu jirtaa, ama qof ha noqdo ama qaran ha noqdo, cid bay faa'iido ugu jirtaa dhibaato kasta oo dhacda. qodobadan waxaan ku qaadaa dhigaynaa sida ay Soomaaliya, Suudaan, Libiya, Yemen iyo sidoo kale Eritrea oo hadda duulaan lagu ahaa ay si weyn uga faa'iidaysanayaan ama uga faa'iideenba faa'iidaan caadi ahaan ee uga heleen dhibaatada iyo dagaalka iyo duulaanka bariga dhexe ka soconaya. iyagu faa'iiday u tahay 100% arrintaas aan kula wadaagi doonaa. weliba waxaa qayb ka ah dadka ku faa'iidaya waddankeena hooyo ee Soomaaliya, sida ay kooxo cadow ahaa oo waddamadaasi halis ku ahaa ay u burburayaan ama ay dhibaato adag ula kulmayaan, mid dhaqaale iyo mid hub iyo mid nooc kasta ay ahaato, ayaan sidoo kale warbixinteeda ku sii doonaa. intaynu warbixinteena ku guda jirno waxaan ku ogaan doonaa, idiin soo gudbin doonaa sida imaaraadka oo mar caaddaa sare marayay xisaabtana ka saaray in adduunku inqaabi jirto, dhibaatooyin ay ku iman karaan waxaan ay adduunyo tahay, oo awalba fakri iyo dhibaato iyo dihaal ayagu kusoo jira bariga hore Soomaalidu sikada ay u dirto ayaa ilaahay waxa weeyaan oo shidaalka la soo baxeen oo dekadahoodii waxooda shaqeeyeen in dhibaato inay ku iman karto. imaaraadku muddo dheer ayuu iska dhitirayay, laakiin hadda ayuu hayaa. sidoo kale waxa ilaahay u aqbalay ducooyin iyo habaar miyaan dhanaamsi ducooyin habaarkii ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa Suudaan, weliba shacabka Suudaan baa naga daran. 300 oo kun ku dhawaad dhimashadu ayay maraysaa. 12 milyan 15 milyan oo qof ayaa ku barakacay oo ku guryaseegay dhibaatada imaaraadka u geysanay darteed. habaarka heer waxay gaarsiiyeen masaajidada ay ka soo qanuudaan. wixii ka dhacay alfaashir kaliya ogeyn 10 kun oo ruux lagu dilay 24 saac. habaarkii ilaahay waa u aqbalay. magaalooyinka istiraatiijiga ah iyadoo caawa weerar lagu qaaday imaaraadka, ayraahday xaafadaha iyo saldhigyada iyo deegaanada muhiimka ah ee la burburiyey, iyo lacagta uu khasaaray oo ilaa hadda la sheegayo maalintii kaliya inuu khasaaro 10 bilyan oo dollar. maaha milyan, waxaan ka hadlayo 10 bilyan oo dollar. inta dagaalkaas uu socdo oo 6 maalmood ah, dekadaha iyo dhaqaalaha waxa ka waayay marka kaliya laga hadlayo iyo airportyada iyo wixii kala socday 10 bilyan oo dollar ay imaaraadku maanta lumiyaan. ma ku jirto hubka iyo waxyaabaha uu isticmaalay iyo si uu soo rido gantaaladii droonooyinka u shaqeey weysay iyo khasaaraha kale oo ku dhacay iyo ceelasha shidaal oo uu lumiyay. waa kaliya airportkii oo isticmaali jiray Dubai Airport, International Airport, iyo sidoo kale Jabal Ali iyo dekada Al Sayd. dekadahaas dhibaatada ku dhacday kaliya
maalintii 10 bilyan ayuu khasaaraa ma ahan xataa burburka ku yimid waa istaageen waa taa daawadayaal saaxiibayaal halkani waa warbaahinta qaranka TV dhammaan barnaamijka mawduuca isagoo ka kooban ayaa ka bogan doontaa dagaalka bariga dhexe ka soconaya maalintii lixaad ayuu galay dagaalkan waxaad moodaa dadka qaarkood inay musiibo u arki karaan laakiin haddana dhinaca kale dadka qaar faraj ilaahay u soo diray oo waqtigiisii ku yimid ayay u arkaan ummad badan oo dhibaataysnaa oo dulli iyo gardarro iyo dulmi uu haystay ayaa ilaahay dagaalkani faraj uga dhigay ninkii isagu baraare ku jiray oo dhaqaalihiisu cirkaa marayay dabcan wuu saameynaya oo dhaqaale burbur ayuu ku keenaya laakiin sharwadayaashii ayaa dagaalkan wuxuu ku noqday shar soconaya ku noqday tusaale ciidamada suudaan tan iyo markii imaaraadka carabta dagaalka lagu bilaabay waxaa go'ay gebi ahaanba hubkii iyo logistikadii iyo saanadii laga soo qaadi jiray imaaraadka eerboryada imaaraadka laga soo dhoofi jiray waxaa la keeni jiray mararka qaarkood marin waxay ka dhigi jireen hadba meel bay mari jireen mar boosaasay berberi mari jireen baa la dhahaa kadib waxay tegi jireen Nayala airport magaalo weyn oo ka tirsan gobolka Darfur ayay gey jireen marna Libya gey jireen si tahriib ayaa dhulka loo soo mari jiray Khalifa Haftar meeshu haysto magaalooyinka Benghazi iyo Al-Kubra iyo halkaas la gey jiray mar Chad ayay gey jireen mar Ethiopia ayay gey jireen oo gobolkan Bishangul Gumus la yiraahdo ayay gey jireen kadibna Asoso airport magaalada caasimadda ah Bishangul ayaa la gey jiray halka xataa jibhad ayaa laga furay dowladda Suudaan maxaa dhacay hadaba imaaraadka isagii baa kala carar iyo macnaha meel noloshii dhan baa ku adkaatay marka awal directii iyo direct dhacsi iyo kibirkii iyo wixii mataqaanaa hubkan uu ku daldalayay aqliyadii macnaha bini aadamku markuu ilaahay isugu dabariday qaarkii uu kibraayay kibirkii meeshuu ka baxay isagii baa hadda gacan kuga bad ah dekadihii waa la xiray ceelashii shidaalka waa soo wadaa magacyada meelaha la burburiyay meelaha dhibaatay ceelashii shidaalka waa la burburiyay qaarkood sidoo kale airportyadii way xiran yihiin yani kaabayaashii dhaqaalaha dukum daakum baa laga dhigay magaalooyinkii iyo goobihii dalxiiska iyo hoteeladii casriga ahaa dhulka qaarkood la dhigay Suudaan marka hubkii aan istaaga lahayn ee Abriil 2023 kusoo bilowday Maxamed Hamdan Dagalo iyo kooxdiisa RSF ama Janjaweed ee calooshooda shaqaystayaasha lagu baabi'inayay qorigu rasaas la'aan ma dhici karo waxa ugu daran waxa weeyaan logistikada iyo rasaasta qoladan ma haysato dekad ma haysato dekadii Port Sudan iyo badda cas Red Sea iyo kanaalkii Suez waxa xigay dawladii ayaa haysata gobolka Darfurna bad ma lahan kaliya dhibaatadu waxay tahay intaas oo diyaarad oo imaaraadka laga soo dhoofiyay laga soo waariday oo hub iyo rasaas ah ma ahan bilaash dahabkii ayuu daldalanayaa hub iyo rasaas ayuu kusoo bedelayaa si loo gubo Suudaan wixii ayaa meesha markii Abu Dhabi ayadii ay kala waxaysantay ay meesha ka baxeen dowladda Suudaan markii hore waxay rabtay dagaalka bisha Ramadaan in cibaado lagu dhamaysto oo dagaalka la istaajiyo maadaama awoodda ka soo horjeeda lafteeda awood firfircooni ku dagaalantay helis ay ahayd inkastoo maalmihii la soo dhaafay oo dhan ay jabayeen oo qabiilka xataa Rizaiqad nimanka la yiraahdo maxaamid reerkii la jiray jifada la jiray oo Musa Hilaal iyo qabiilkiisa hadda godood ay ku jiraan kadib markii Musa Hilaal lagu weeraray oo magaaladiisii iyo deegaanka uu ka soo jeeday Musayra lagu weeraray lagu dilay wiilkiisa halka isaguna ordu ku galay dhanka Chad yani halka laftigeeda burbur iyo kala furfur ayaa ku imaanay ciidankooda laakiin hadda burbur kala soo degdegay imaaraadkii sahayda iyo logistikada iyo hubka u daldalay halkaas isagii baa waxa weeyaan hawshiisi waa isku fadhiisata isagii baa meel ka baxala marka sidaa darteed Suudaan faa'iido joogta maanta duulaan ay qaadeen oo adag ayay waxay ku qabsadeen magaalada Bara City waa magaalo istiraatiiji ah waana magaalo dhacda North Kordofan ama waqooyiga Kordofan magaaladaasi waxay markaasi kamid ahayd magaalooyinka istiraatiijiga ah ee waliba marinada muhiimka ay ku yaalaan oo isku xira gobolada Kordofan iyo sidoo kale Darfur magaalada ciidanka ayaa gacanta ku dhigay maanta dabcan maapka iyo waxaan filayaa inaad muuqaalkan aad ku dhex kartaan magaalada kaliya ma ahan horumar ayay sameynayaan marka meelaha qaarkood waxa la leeyahay ciidankii Suudaan ka soo horjeeday RSF kooxda calooshooda shaqaystayaasha burbur bay burburayaan u muuqanaya midaan soo noqosho lahayn rasaas la'aan iyo logistic la'aan cunada timirta iyo waxa timiriyaan dhihine sahayda ay cunayaan xataa meelaha laga saaro waxa ku qornayd boxyo ay ku qoran tahay imaaraadka carabta rasaasta imaaraadka carabta yani wax kasta waxa laga keenay meeshaas laga keenay waddanka lagu burburinay kow faa'iido koowaad Suudaan baa qabta labo Soomaaliya waxay dhibane u tahay dalka imaaraadka carabta 15 sano 16 sano la soo dhaafay si toos ah ay firgelintiisu nooga muuqato gudaha dalkana
dalkanaga wuxuu keenay koofiyad yarta ayuu keenay isagoo kala goyn Soomaaliya oo Somaliland ka goynaya wasagii nimankan muxuu ahaa koofiyad yarta ama Yahuudda keenay cid kale ma keenay Imaaraadka keenay waa ina ogaataa hadda ogtahayna waa ogtahay hadda ogeyn ma ogin shirkadda DB World maxaa Jabal Cali iska lahayd ee la burburiyay shirkadda tuugada ahayd ee Djibouti ay hore isaga soo cerisay Eritrea ay u diiday inay dekedaheeda ku wareejiso ayaa iyaduna waxa weeyaan muxuu ahaa DB World ayaa waxay si aan Soomaaliya madax kor ugu soo qaadin dekedaheeda waxay qabsatay Berbera port waxay qabsatay Boosaaso port waxay qabsatay Kismaayo ay heshiis xaaraana kurti waa saxiixday inta kaliya ma ahan cid kasta oo ka soo horjeeda Soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo hadii siyaasi tahay hadii maaragtay bahalkii oo Soomaaliyeed ayay lacag ku bixiyaan oo adeegsadaan si wadankan loogu burburiyo cid walba oo ay isleeyihiin masaalixdeena ka soo horjeeda kay shalay wateen maanta wala dagaalamayaan xasan sheekh iyaga shalay kursiga markii uu fuulay farmaajo way ka soo horjeedeen iyaga saaray hadda mabaadi badan ay isku diideen wax badan ayuu ku diiday wasagii dawladda Soomaaliya xiriir ku jirtay waa tii la isku dhacay hadda madaxweyne xasan sheekh way la dagaalamayaan waxay taageerayaan mucaaradka Soomaaliya ama golaha mustaqbalka ugu yar ama waxa dunta ugu yar maamulada Soomaaliya macnaha ay mucaaradka wada socdaa ay taageerayaan hadda malaayiin ay ku bixinayaan mana ahan inay kala jecel yihiin shalay farmaajo la dagaalamayeen maanta xasan bay la dagaalamayaan biri kan imaado oo dani hadduu imaado ama Sheekh Shariif isagana haddii danta ay rabaan ay ka waayaan way la dagaalamayaan danta ay rabaan maxay tahay waa waxaan doonaan ka yeelayaa damiirka wiilsan nuxnuxsan haddu baahin jirkiisu isku dubaaxin dalka waa kala goynaya qaybtan Yahuudan koofiyad yarta hadda Imaaraad maqashid waa koofiyad yar wakiiladooda weeyaan nimanka qaybtan Soomaaliya inay ka gooyaan bay rabaan Soomaaliya inteeda kale koonfurta inay sii kala gooyaan bay rabaan yani waa cadow islaamka ee saxda ah nimankaas weeyaan koofiyad yartaani waxaana u jeedaan Mareykankan bix weeyaan ay qarso nimanka khamiiskiisa ku soo gashtaan ku dhibaateynay ugu daran kuwa marka Soomaaliya way kana sanaysaa ayaamahan siyaasadda waddanka in kastoo ay jahwareersan tahay dastuurkii waxyaabo badan la isku hayo haddana waa arrimo gudaha ah weeyaan arrimahaas gudaha ah inagu ama xalisano ama isku buuqbuuqan inaga noo taala laakiin dadaalkii ay wadeen iyaga meesha uu ka baxayaa totally waa inaad taa fahantaa dhaqaale ku bixireen malaayiin dollar ayaga hadda waxa weeyaan yani u baahan doona kab iyo waxtar ayaga u baahan doona malaayiin ay khasireen maalmo intaas bilyan oo dollar ay khasiraan kaabayaasha dhaqaalaha ee lacagta kibirka ay ku sameeyeen ayaa meesha ka sii baxaysa airboryadoodii wixii ay wax ka kala hagayeen oo waxa weeyaan dhibaatada ka direen mu'aamarada ayaa burburay marka iyagii baa waxa weeyaan macnaha maxaan dhihi karnaa sagxadda ah marka cidna wax ma yeeli karaan shar iyo khayr hadda toona ma laha imaaraadku Soomaaliya way ka faa'iiday Yemen waddanka la dhaho waxay ka sameeyeen waddankaasi waxyaabaha talaabooyinka ugu daran ay ka sameeyeen kooxda STC ay Duruus al-Suweedi u taageersanaa daxstaan ayay dhowr iyo 10 sano ka badan 15 halka la weeraray Sacuudiyiinta looga saaro meesha kooxdaasi ka dhex abuureen macala isbahaysiga Sacuudiga ku soo jeesteen shidaalkii suuqada ay jasiiroonka u qabsadaan 60 bilyan ay waddankaas ku qarash gareeyeen si waad la sheegay oo ay ku khasaareen saldhigyo ciidan hub ay ku daldaleen undergroundyo dadka lagu cadaabo lagu ciqaabo xabsiyo dhulka hoostiisa oo dadka Yemeniyiinta lagu ciqaabo ay ka sameysteen waa tii Sacuudiga uu saacada gudahood kaga eriyay kadib markay isku dayeen inay meesha dhan qabsadaan gobolka Xadrmuut haddana jambi u soo fariisteen Sacuudiga Yemen kooxda STC waa laga takhalusay xogaa iyaga kamid ah Xuutiyiinta isku dhiibeen waa kala fidhadeen Imaaraadka heer wuxuu gaaray ayaantaas oo Xuutiyiinta ku dhaho Sacuudiga ceelashiisa shidaalka burburiya oo weerara kaabayaashiisa dhaqaalaha annaga dhaqaalada ku bixinayna saraakiishii yani Yemeniyiinta xataa inay sheegaan maxaa dhacay markii jawaabtu waxay noqotay in qolada la yiraahdo STC oo qoladii uu taageersanaa oo koonfurta inay goyso rabeen way baabeen Duruus al-Suweedi isagoo baxsad ah waa tii Soomaaliya uu soo maray Berbera doon ku soo maray airportka Muqdisho waa tii laga dhoofiyay waa tii laga wada hadlay la yiri waa la qariyay Dubai ayuu joogay xogaa ayaa madhowti madaxayna kor soo qaadaan oo kooxo kale abaabulaan bay isku dayeen wixii laakiin hadda way isfoqsadeen yani Yemen koonfurta dhanna waxa haysta dawladda saxda ah ayaa haysata ee Sacuudiga hadda taageerada ka helisa nimanka Imaaraadka halkaas ku soo fashilmeen waa saddex kiis weeyaan waa Suudaan Yemen iyo Soomaaliya baad kala hadlaad dhibaatada uu ku hayay waddanka afraad waa Liibiya General Khalifa Haftar ayay geeyeen iyo gadaalka taagan calooshada shaqaystayaal ayuu daldaleen shidaalka waddankaas ceelasha ay gacanta ku dhigeen Liibiya iyada dhaqaale ee gaagta shidaalkan daldalanayna
waddanka oo dhan wada qabso. Khalifa Xaftar uu ku dadaalay qorshahaas Turkiga hor istaagay. dhul yar oo waxaa ka badbaaday caasimadii Trablis oo dowladda sharciga ay ku haysan tahay iyo xoogaa dhul ah. bariga dalkaasi ama 87 boqolkiiba ilaa hadda waxaa haysta Khalifa Xaftar iyo kooxaha calooshooda shaqaystayaal iyo balaayo ayagu ku duldaleen. xataa nimankan ciidankooda caadigana waa calooshooda shaqaystayaal, ciidamo calooshooda shaqaystayaal oo ilaa Colombian iyo wax cid kasta oo duruuf lagaga faa'iidaysan karo ayay soo daldalaan si ay markaas ugu geeyaan waddan walba inay kharbadaan ay rabaan. Suudaan hadhihi bahalkii hadhihi meel kasta waxay geenayaan kumanaan calooshooda shaqaystayaal ah. laakiin Suudaan iyo Liibiya iyo dhaqaale ayagu ku bixinayaan ma ahane hanti ay ka guranayaan weeyaan. Soomaaliya xataa macdan badan iyo dahab iyo adduunya ka gurtaan sida la sheego. waxay wadamada ku burburinayaan waa dhaqaalaha waddanka la guranayaa. isla isagii baa inta suuqa Dubai la geeyo dahabkii wixii la habeeyo baa iyadoo kharashaad iyo saanad iyo qaar ah loo soo celinaya, qaarna iyaga ka sii faa'iidaysanaya. waa intaa un. Liibiya way ka nasanaysaa. Suuriya kooxda Kurdiyiinta ah qasad loo yaqaanay ayaama dhaweyta muxuu ahaa ka dagaalamayay yani maleeshiyaadkii ayaama dhaweyta laga adkaaday iyagaa baritaanayay Kurdiyiinta ah ee rabay inay kala gooyaan dalka Suuriya. kooxdii haddaa xasuustaan Falastiiniyiinta ahayd meesha la yidhaahdo Gaza ka dagaalamayay ninkii Yaasir Abu Shabaab uu hogaaminayay oo la dilay iyagaa sameeyey. iyagaa hubka u daldalayay akayaashii waxay ku dirirayaan diyaaradaha imaaraadka ay ka qaadayay Dubai oo halkaa geenayay koonfurta u geenayay. macnaha imaaraadku meel uu u socdo waa la gara waayay. wuxuu noqday waddan musiibo ah. digashada kaaga daran Soomaalida soo caayaan, idaacadooda ka soo caayaan. Suudaaniyiinta markii xasuuqi Al-Fashir oo kale laga hadlay ayay ku baashaalayeen oo caynayeen. weliba jees iyo kibir leh ayay u caynayeen. mid imaaraad waxaan daawanayay mar yani Abu ninkii lahaayo caanka ku noqday xasuuqa dadka isagoo leynayo xasuuq dareed samaynaya isagoo jees Abu macnaha Abu shaqo fiican buu hayaa dhahaya imaaraati ah. kibirkii directii iyo nasiinadii xoogaa nabadii baa halkaa gaarsiisay. maanta maxay ku sugan yihiin imaaraadka carabta? haddaba waxa weeyaan wax yar baa idinka warbixinayaa oo muuqaalka nuxurkii wadamadaas waxay ka faa'iidayaan burburka imaaraadka faa'iido aad weyn ayaa ugu jirta. ciidamada Suudaanna waxaan u rajeynaynaa guul iyo horumar. dagaalku weliba inuu kusii socdo imaaraad ayaan u rajeynaynaa. faa'iidada maxay ka faa'iideen? dowladahaas waxay ka faa'iideen xasilooni ayay heleen, deganaansho ayay heleen, dhaqaalihii iyo hubkii lagu soo dadalay ayaa meesha ka baxday. Eritrea hadda waxa duulaan ku ahaa Ethiopia inay ogtiin maaqaan. Ethiopia maskaxda abiye duulaanka kama iman ee wuxuu ka yimid imaaraadka oo riixaya oo dhahaya Eritrea qabso, casab qabso, hubka iyo logistikada iyo rasaastu ma go'ayso, anaga ku soo tirayna 100 milyan, 120 milyan, 130 milyan, 40 milyan waa qabsan kartaa. annagana hadhow dekedaha ku dhisana maal gelinayna, DP World baa keenayna, waddanka la wareeg haddaad doonto inta canfarta ku soo darso. marka hore jabhada ku hubiya canfarta. waxaasa mu'aamarada oo dhan meesha ka socota. dhisaba caqliga dhisaba maaha, waa caqliga Dubai weeyaan. asigaas afweekina toos buu sheegay waxna soo weeraray Ethiopia maaha laakiin dal shisheeya gadaal ka soo riixay waana ognaanay imaaraadka. asigaas afweeka waa ninkii intuu tagay sanadka la soo dhaafay dawaaqadii Sacuudiga tagay yiri imaaraadku yuhuud buu soo wadaa, cid kastuu soo wadaa, dhibaatooda ku wadaa. Sacuudiga gobolkan cidda ugu awooda badan, ugu dhaqaalaha badan, ugu tirada badan marka dhanka laga hadlayo carabtu adinka ugu dalka weyn waa inaad balaayadan u soo wada imaaraadka halkeeda ha sugineen ku burburisaan ka hortag tagtaan. Soomaaliya aad caawisaan, cid kasta aad caawisaan, annaga xataa nala shaqaysaan, Suudaan caawisaan si imaaraadka meesha looga saaro. Eritrea ku dhalisay isla markiiba Sacuudigu wuxuu qaaday tallaabadii Yemen guushii loo keenay baa ka dhacday 24 saac in imaaraadka loo qabtay. Soomaaliyana dadaalo ay ciidamada u soo direen, adduunyo u soo direen, diyaaradaha hadda la gadeeyeen kastoo Sacuudiga laftiisa dhibaato culus ee hadda ku dhacayso. waxyaabo badan ay Soomaaliya in kala shaqeeyaan bilaabay. Eritrea laftigeeda sidoo kale dekada casab anaga maal gashanay. nuxurka marka wararkii waxay tahay waa laga nastay imaaraadka carabta. imaaraadka carabta marka muuqaalka waxaa laga baabi'iyey oo laga burburiyey imaaraadka carabta oo dukumintaakum laga dhigay. yani muuqaalku inkastoo dheeraaday haddana waa isku kii raacinaya. amase muuqaal kale baa idinka sameeya may waa isku kii raacinaya. okay 8 Febraayo ilaa 5 maanta hadda weeraro dambeeyay baa jiray. weeraradaas waa u kaadinaynaa laakiin 8 bishan ka bilaabanaa. Burj Al Arab Hotel ayaa 8 kilo weeraray. waa hotel caan ah. qaybo ka mid ah hotelka ayaana dab qabsaday, burbur aad xoog badan uu soo gaaray. sidoo kale isla 8 waxaa la weeraray Burj Khalifa agagaarkiisa hoteelo iyo dabaqyo dhaadheer oo ku yaalay gaar ahaan dhismo dheer
iyadoo oo qaraxyada iyo dabka holaca ka baxay iyo uurada halkaas laga arkay dhimashay dhaawac inta waa ka dhalatay isla 28kii bishii waxaa la weeraray waa bishii lasoo dhaafaya February March hadda ku jirnaa Dubai International Airport ayaa la weeraray garoonka qaybo ka mid ah oo muhiim ah ayaa la burburiyay terminaalo garoonka ah iyo sidoo kale qaybo kale oo muhiim ah ayaa la burburiyay isla 28kii bishaas Jabal Ali iyo koodii bishii Maarso Jabal Ali Port ayaa la weeraray dekada ugu weyn ee markaasi mantiqadaas ku taala ahna dekad kala dhacaysay oo dekad alaabta Shiinaha laga soo qaaday waxa Yurub laga soo qaaday waxa Afrika loo waday ku Afrika laga soo qaaday dekadaha ku kala wareegaan dhaqaalaha caadi ah bay ka sameeyeen dab aad weyn ayaa ka kacay sidoo kale burbur ayaa soo gaaray xooggan qaybo ka mid ah dekada isla Said Port oo ah dekad ku taala Abu Dhabi ayaa iyadana la weeraray waxyeelo aad xooggan ayaa soo gaartay iyo burbur waxaa la weeraray Al Khalidiyah Abu Dhabi waa deegaan magaalada yani muxuu ahaa oo magaalada ku yaala burbur iyo sidoo kale holac iyo balaaya ka dhacday Fujairah Oil Facility ayaa la weeraray oo ah ceelal iyo sidoo kale kaydad shidaal xarumo kala gedisan waliba ay leeyihiin ayaa dukum daakum laga dhigay daawadayaal saaxiibayaal oo si fiican shaqo looga qabtay okay waxaa markale la weeraray Said International Airport garoon diyaaradeed yani mar kale kaas weeraro lagu celiyay qaraxyo iyo dhibaatooyin aad u waaweyn ayaa laga maqlay intaa waxaa ku sii dheer saldhigyo kale oo la weeraray ayaa iyaguna jira oo uu ka mid yahay yani Al Minhad Airspace Al Dhafra Airspace oo Al Dhafra waa saldhigyadii Mareykanku isticmaalayay oo la weeraray Dubai International Airport iyada ilaa 3 terminaal ayaa la burburiyay يعني جبل علي بورت وركيدا مهنات وادي شغني برج العرب شقه بدن ayaa laga qabtay baan Jumeeriya ayadana shaqo fiican ayaa laga qabtay waxaas oo dhan ay sheegino ardaadiqaha laga dhigay intooda badan qaar waa la gubay qaar waa la burburiyay qaar dhaawacyo culus oo aysan ka soo kici doonin ayaa loo geystay macnaha muraayadihii dabaqyadii wixii oo dhan qaybo dhan baa nuh laga dhigay marka imaaraadku wuxuu haystaa oo hadda guranaya tacabkii uu hore u beertay ayuu guranaya muslimiintii uu dhibay dadka islaamka ilaahay uu dhibay Suudaan oo boqolaalku uu ku dilay Yemen uu kumanaan ku dilay Soomaaliya uu sababteeda waxa weeyaan kala geynteeda iyo isku dirkeeda iyo amni xumadeeda intaas oo jeer intaas oo bilyan uu ku bixiyay intaas oo lacag uu soo dusiyay yani Eritrea hadda weerar ku ahaa yani Liibiya oo kumanaan kun inay iska disho gudaheeda sabab u noqday Syria oo dhibaato ka dhex loo siiyay dawladda hadda cusub ee dhaatay uu macnaha inuu fashilay isku dayay reer qazo ayagu dhibaataysna oo dhibaato kale ugu daray oo ku caloosho shaqaystayaal ku fiidirta oo shaqo u sameeyay waxaas oo dhan marka la isku soo duubo natiijadii miraheeda ayuu hadda qoranaya muuqaalkan ammaan uu yahay qof kasta Soomaaliya inaad share gareysid geopolitica iyo sida ay wax u socdaan ay dadka Soomaaliyeed la socdaan ayaa rabaa adigana haddii aad nagu cusub tahay muhiim ayaa noo tahay runtii nagu soo biir rukumo barteena subscribe dheh gambaleelka furo muuqaalkana sii share karo oo isku dhaafin si aan kugu soo gudbino macluumaad iyo war kasta oo muhiim ah waa tahay daawadayaal saaxiibayaal tan iyo muuqaalkiisa xiga oo walaalkeen Axmed oo idin leh sida iyo amaana Allah